السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولكن عمر داود عبد الله عمر دقو عاو عشر وحن كسر باتن عشر هذا مهمة عشر كان عاو يحكوا بسنة هاي وام حيصير باب what is an idiom وام حيصير باب idiom مع لو واقع idiom صار باب أصل صار باب تمشي كتير مادي يصيدوا قالوا حن استعمالنا يعني الجملة دول أي مركان قلنا صار بابته مركا إنجليش أنا نكور مرنا an idiom يعني صار بابته يعني أفكانه هذه يعني خيحتان كبحنا وهذا الملدان أو معناه كلا لجوده وهذا الملدان أو ujeedo fog leh sarbeebtu waa hadal aan si toos loogu bandhigin haddii cid yani la dhaliilaayo ama laga damacsan yahay in wax laga sheego waa hadal duluc qarsoon kana fog weedha la isticmaalaya erayada ku jira iyo macnaha muuqda ee ay leedahay hadal ay ku jirto aftahanimo xeel dheer ayaa waxaa loo yaqaanaa sarbeeb Englishkan u imaano an idiom is commonly used expression يعني sarbeebtu waa oraha hadii jeer la isticmaala whose meaning doesn't relate to the literal meaning of its words taasoo macnaheeda hadii jeer aan la xiriirin يعني ereyga saxda ah ama kelmadda dhabta ah يعني lama xiriirto marka waa la qalqaluuciyaa meel kale Soomaal taas marka waxa loo yaqaan sarbeeb an idiomku is commonly used expression waa oraha hadii jeer la isticmaala whose meaning taasoo macnaheeda doesn't relate aan la xiriirin to the literal meaning يعني literal meaning lama xiriirto ereyda يعني macnaha dhabta lama xiriirto ereyada markay leeyihiin so marka an idiom is a form of figurative language idiomku يعني waa qayb kamid ama waa form kamid ah figurative language figurative language af Soomaali ahaan waxa loo jeedaa يعني afmalda adiga maxaa tahay afmaldanuhu waa hadal ay suugaanyahanadu inta badan adeegsadaan marka ay cid amaanayaan ama ay cid marka dhaliilayaan taas marka waxa loo yaqaan afmalda figurative language is the use of words يعني waa isticmaalida erayada la isticmaalayo in unusual or imaginative manner waliba loo isticmaalayo يعني hab aan caadi ahayn unusual loo isticmaala or imaginative manner ama xaalad marka yani waxyaabo la sawirin karo kala inta badan loo isticmaala figurative language-ka yani afmalda waa erey ama oraah loo adeegsado si macnaheeda dhabta ah ka duwan macnaheeda dhabta si ka duwan ayaa loo adeegsadaa si sawir ahaaneed ama sawir maskaxeed ama shabahaad yani qof marka loo muujiyo taas marka waxaan ku soo qeexnay figurative language marka figurative language ku afmalduhu wuxuu kor u qaadaa xiisagelinta hodantooyada yani gabyaaga iyo heerka suugaanta uu yani soo bandhigayo inta badan waa saraya marka u qaadaa afmalduhu asiga wuxuu leeyahay ilaa iyo marka laamankan soo socdo figurative language often involves one of the following yani figurative language-ka afmalduhu yani wuxuu leeyahay laamahan soo socda mid kamid ah ayuu marka uu leeyahay waxaa kamid marka afkeena aan ka bilaawno ekeeye waxaa kamid ah shareere boonboonin qufayn silan sugan duurxul yamxeero ama dayro jees ama quusin lagaado iyo sarbeeb intaas marka la isku dhahaa English ahaan waxa kamid ah yani metaphor simile alliteration anastrophe assonance consonance euphemism hyperbole idiom logos glyph onomatopoeia personification ban intaas marka يعني afmalduhu waa laamaha loo qaybiyo soo marka hadda anaga waxaan ognahay idiom ma soo sheegno Soomaaliya soo idiomku yani waa form kamid ah figurative language waan soo sheegnay waa afmalda afka Soomaaliya waa erey ama oraah loo adeegsado si macnaheeda dhabta ah ka duwan si yani sawir maskaxeed ama shabahaad yani loo muujiyo intaas qaybna marka afmalduhu u qaybsamaa maanta anaga marka waxaan ogaanay waa maxay sarbeeb asal yani meesha ka timaade sidoo kale maanta waxaan qaadanaynaa yani sarbeeb hal mid kamid ah qaadanaynaa yani midan ugu horeeya a piece of cake hadda yani waa hadal sarbeeban hal waa wax marka aad u sahlan oo aad u fudud hadii hal loo fasiro piece waa gabal cake waa doolsho gabal doolsho lama jeedo yani a piece of cake that means waa wax sahlan ama wax fudud a task which is very easy يعني waa hawl marka aad u sahlan something which can be done easily waa shay marka si sahlan marka loo sameyn karo ama lagu qaban karo ama effortless than inta marka waa lagu yani waa loo fasiraa tusaale ahaan marka aan gelino example sentence tusaale ahaan riding bicycle is a piece of cake يعني fuulitaanka biskuleetiga la fuulayo riding waa fuulitaanka bicycle waa biskuleeti fuulitaanka biskuleetiga la fuulayo is a piece of cake aad ay u sahlan yahay aad ay u fudud yahay that means very easy aad ay marka u sahlan yahay mid kale riding bicycle yani fuulitaanka bicycle biskuleetiga la fuulayo is as easy as by يعني wuxuu u sahlan yahay sida kutiletiga oo kale as easy as by waa another idiom kale
loo isticmaalo wax marka aad u sahlan يعني as easy as by wax marka aad u sahlan marka dialogue hadda wada sheekaysan yani oo laba qof wada sheekaysanayo macallin iyo ardaygiisa teacher macallinka soo booday marka soo ardaygu wuxuu ku dhahay did you do your homework layligaada ma ka shaqaysay student ardayga soo booday wuxuu sure ha macallin waan ka shaqeeyay it was a piece of cake yani wuxuu ahaa layliga mid aad u sahlan oo aad u fudud ayuu marka u ahaa dialogue 2 yani wada sheekaysi kale waxa wada hadlayo samsam iyo cumar samsam soo booday waxay tiri how is your new job يعني شغله عصب بالكبر عمره سبب وحده it is a piece of cake يعني شغله marka aad ay u sahlan tahay aad ay u sahlan tahay hay mid saddex dialogue 3 cabdi waxa wada sheekaysanay batuulo cabdi soo booday wuxuu did you finish your work يعني shaqada adiga ma gabgabayso miska dhameys batuulo waxay tiri yes ha shaqadii aniga waa iska dhameeyay it was as easy as by shaqadii waxay ahayd marka mid aad u sahlan oo aad u fudud sida kutileti oo kale yani by kutileti waa wax marka rooti هذا لو فسره واي يعني وكتلات انت بدن ويعني هيلب iyo waxyaabaas yani oo wareegana waxa loo yaqaan marka bay soo marka dialogue 4 waxa wada sheekaysanaya cabdi batuul cabdi soo bood wuxuu dhahay can you speak english adiga yani luqada ingiriisiga ku hadli kartaa uma awoodo inaad ku hadasho batuula waxay tiri yes ha speaking english is as easy as pie yani ku hadlida luqada ingiriisiga aad ay marka aniga u fududahay yani aad ay u fududahay ku hadlidan ku hadlaa ingiriisiga marka waxa jiro hadda waxa soo qaadanay piece of cake معناه tahay wax marka aad u sahlan waxaan kala soo qaadanay idiom kale la macna ahna as easy as by waxa kala jira synonyms idioms yani idiom kale marka la macna ah yani sarbeeba kale la macna ah oo waliba ayago idiom kale la macna marka jira sida waxa kamid ah cake walk and walk in the park child's play like shooting fish in parallel intas idiomne marka waa lagu macneeyaa midkood aan ku hormarno cake walk that means waa wax sahlan waa sida the piece of a cake am as easy as by oo kale waa jumladan u isticmaalna marka waxa wada hadlaayo waa loo qof saaxiib oo kale marka midaa wuxuu helay marka shaqo waxa la brimo yani waraysi interviewga ayaa yani bari markii aad ka soo gudubto ayaa shaqada markaan ku ogolaanayna marka ninkii kastoo xoogo uu cabsoonaya marka saaxiibkiisa uu imaado saaxiibkiisa marka wuxuu dhahay don't worry yani adiga walwalin you have all the skills yani adiga dhamaan xifradaha idil marka waa leedahay this interview will be a cake work for you يعني this interview يعني وريسيغان will be a cake walk for you وكو سهلان دونا يعني cake walk سهلان شو very easy ميدي حكتا walk in the park يعني واحد آتو سهلان تصالحان don't worry يعني هو you have all the skills يعني هذيك دمان skills كو يدل وقول لهذا يعني حفرده يدل وقول لهذا هاي this interview يعني وريسيغان will be a walk in the park for you وكو سهلان دونا مركا هو وحاكا ولا معناها child's play يعني تصالحان وكاله don't worry you have all the skills this interview will be a child's play for you يعني وسيدا سو sheegeen يعني awalwalin يعني adiga waxa wareysigan uu ku sahlan doona sababtoo adiga dhamaan xifradeeda ay u leedahay like shooting fish in parallel halala di loo fasiro like shooting yani shoot waa gamida ama toogashada waxyaabo la marka la mid ah like shooting fish yani kalluun in lagu tuuro in parallel foosto marka in lagu tuuro that means marka wax aad u sahlan Hey, don't worry, you have all the skills. This interview will be like shooting fish in parallel for you. يعني هو الولين يعني محل هذيك رمان حفرد يا أقول هذا هاي وريسيان ويكون خندوا ميت سهلا أو كو سهلا أو كوفت أو يكون خندوا صوبته هذيك وحواي حفرد ذي المركب على هذا وعن فيله هذين نفهمني محلها يعني وامح إيديم أصل ماشي كي معدي يوسيد مركو أنا استعماله يعني أنا استعمالين سيابك للدون وحكى له كم ده piece of cake وحكى له يعني عن قصة شغلي يعني إنه يعني very easy وحمرك أدو سهلا وحلا معناه يعني as piece يعني as easy as by وحكى له صار شغلي يعني سن مس إيدي كله مركا لحريرة لا معناها سيدا cake walk in the park child's play like shooting fish in parallel وعن فيلا يا مركا 10 كان إن مركا يعني أدفنتين آذن أمسنتين وبالله التوفيق